1992 waa wakhtigii ay dagaaladii sokeeyey ay ka socdeen Soomaaliya. Dagaaladiina waxay sababeen abaar. 300,000 oo qof ayaa u dhimatay baahi darteed. Generaal Aydiid waxa uu ahaa hogaamiyaha ugu awooda badan ee haystay Muqdisho. Maraykanka 20,000 oo askari ayuu waddanka keenay, isaga oo ka falcelinaya abaaraha ka jiray dalka. Bishii Abriil 1993, Aydiid waxa uu sugayay in ciidamada Maraykanka ay waddanka ka bixi doono, kadib markuu caawiyey dadkii abaaraha saameeyeen. Maraykanka waxa uu dhahay inuu rabo inuu soo celiyo nabadda. Aydiid waxa uu ku dhawaaqaya dagaal. Maraykanka waxa uu keensaday diyaaradaha Black Hawk iyo ciidamada Delta Force si uu ugu takhaluso Aydiid. Halkan waa suuqa bakaaraha, qaastaan Ertoogte. Waxay ku arkayaan ninka Aydiid hubka ka iibiya. Sirdoonkooda ayaa daba dhiganaya. Asaga oo jidka ku sii jiro waxa uu arkayaa 3 helikobter. Kadib xabad ayay matoorka gaarigiga ku dhufanayaan. Sidaasna ayay ku qabanayaan. General Garrison ayaa xabsiga ugu imaanaya. Waxa uu dhahayaa idinka Aydiid 6 isbuuc ayaa ku qaban weyseen. Generaalka waxa uu ku dhahaya, anaga Aydiid ma rabin ee adiga ayaan ku rabnay. Inta uu yaabo ayuu dhahayaa muhiimada aan idin leeyahay waa maxay. Waxaan ahay qof raadsado qutulyoonkiisa oo keliya. Kadib waxa uu dhahayaa, haa waan ogahay, waxaa hubka ka iibisaa Aydiid ee inoo sheeg meesha uu jiifto. Mana ka tagayno Soomaaliya ilaa aan ka qabano Aydiid. Waxa uu ugu jawaabayaa, ma ahayn inaad imaadan dalkeena. Kani waa dagaalkeena ee ma ahan kiina. Inta uu xanaaqo ayuu ku dhahayaa 300,000 oo qof ayaa dhimatay. Ee ma ahan dagaal ee waa dhabar goynta shacabka Soomaaliyeed. Kadib uu ka soo tegayaa. Waxa uu ku dhahayaa askarta, ninkan si fiican u ilaaliya. Maxaa yeelay Aydiid waxa uu dareemayaa khasaaro. Ku-xigeenkiisa waxa uu dhahayaa Soomaaliya waqti badan ayaa inooga khasaaray. Wuxuu ugu jawaabayaa, ma ahan meeshan sida Iraaq oo kale. Soomaalida waa dad adag. Halkan waa airportka Muqdisho. Waana meesha ay degan yihiin ciidamada Ameerikaanka. Askartana waxa ay bilaabeen inay ku dalxiisan xeebta Soomaaliya. Waxay la yaaban yihiin quruxda iyo cimilada Soomaaliya. Marka ay ku laabtaan xarunta, mid ka mid ah hogaamiyaasha ayaa ku dhahaya maxay tahay dalxiiska aad aadeen. Canshuur ayaa la idinka rabaa. Ayagana waxa ay ku dhahayaan adiga ma tihid madaxteena. Madaxeena General Garrison oo keliya ayaana dhihi kara. Askari kale ayaa wuxuu ku dhayaa mudane diyaarada oo keliya ayaan ku tababaranaynay. Mid kale ayaa soo boodaya. Waxa uuna ku dhayaa iska ilow mudane. Wuu baahan yahay. Isbuuc wax ma cunin. Kooxda Delta asalkooda waxa ay u badan yihiin dib jir edebna malahan. Ayaga oo sheekaysanaya ayaa mid waxa uu dhahayaa haddii qof Soomaali ah uu dilo qof kale. Hadduu rabo caato ha ahaado waxaa laga qaadayaa 100 geel ah. Saaxiibkiisa kale ayaa dhahaya 100 geel ah iska dhaafee hal geel xitaa ma dhiibi lahayn. Kadib waxay weydiinayaan Eversman, ma jeceshahay dadka caatada ah? Asaga wuxuu dhahayaa, aan jeclaado ama aanan jeclaanin, aniga ayaga waan ixtiraamayaa. Mida kale ayaga ma haystaan cunto iyo waxbarasho. Mana ahan inaan daawano waddankooda oo burburaya, waa inaan caawinaa. Kadib bil ayaa qalal ku soo boodaya. Generaalkana xoogaa kadib wuxuu dhahayaa, xaaladiisa waa ay ka sii dartay. Waddanka ayaa dib loogu celinayaa. Adiga ayaa ciidanka madax kaaga dhigaynaa. Eversmanna wuu ogolaanayaa. Halkan waa degmada Howlwadaag, qaasatan suuqa bakaaraha, waan saldhiga Aydiid. Kan waa Abdi waana jaajuus, aan u laabano General Garrison. Waxa uu dhayaa waa inaan maanta soo qabanaa Omar Salaad oo ah la taliyaha Aydiid. Abdi Awale Qaybdiid oo ah wasiirka arrimaha gudaha. Muddo 45 daqiiqo gudaheeda. Waxaana ka soo galaysiin waddada Howlwadaag. Hotel Olympic ayaa hor istaagaysiin. Matnak ciidankiisa waxa ay soo qabtaan waxay soo saarayaan gaariga. Aniga waxaan idiin dalbay diyaaradda IC-130, laakiin waxaana la siiyey helikobterka Black Hawk. Ciidamada cirka waxaa madax u noqon doono Matthew. Baaqana waa Irene. Abdi gaariga korkiisa waxa uu ku qortay balaas. Halka ciidamada ayaga oo diyaar garoobaya ayaa mid ka mid ah dhahaya Soomaalida waa caamo. Ma yaqaanaan sida xabada loo rido, yeysan dhagaxaan idinku dilin. Hogaamiyahooda cusub ayaa u khudbadeynaya. Ugu dambayntiina waxa uu dhahayaa, isdiyaariya waan baxaynaa. Mid asagoo qaadanaya doobiraha habeenkii, ayaa saaxiibkiisa waxa uu ku dhahayaa, uma baahnid, habeenkii inta la gaarin ayaan soo laabanaynaa. 2 eber kiilo meesha aad ka qaadan lahayd 1 eber kiilo ka qaado. Hadda waa 8 saac iyo bar. Diyaaradana waxay daba socotaa gaariga Cabdi si uu u geeyo ayaga Hotel Olympic oo ah meesha ay joogaan Aydiid labadiisa garab. Cabdi waxa uu shidnaa raadiyo. Waxay ku dhahayaan naga dami. Aan u laabano askarta. Eversman waxa uu dhahayaa, Soomaali xeebteeda way qurux badan tahay. Sidoo kalena qoraxdeeda way fiican tahay. Waa meel ku fiican dalxiiska. Saaxiibkiisana waxa uu ku dhahayaa, adduunkan waxaa qasaaya waa siyaasad. Adiga waxaa isku daydaa in ciidankaaga aad ka soo saarto dagaalka iyaga oo nabad qaba. Isla waqtigaas gaariga Abdi waxa uu galay jaam. Waxa ayna ku dhahayaan meeshan miyaa meesha. Isagana waxa uu u sheegayaa been. Xooga yarkadii ayuu runta u sheegayaa. Waxayna ku dhahayaan hotelka iridiisa nageey. Haddii kale lacag kuma siin doono. Hogaamiyaha ciidankana waxa uu u sheegayaa meel u jirto 15 kiilomitir. Aysana ka fogaanin waddooyinka. Aydiid labadiisa garabna ay soo qaban doonaan oona halkaan keeni doonaan. Howlgalkana ay ku qaban doonaan 1 saac oo keliya. Ugu dambayntiina wuxuu kula dardaarmayaa,
inaysan qofna ka soo tegin. Waxay rabaan 10 diyaaradood iyo hal eber baabuur inay ku soo qabtaan 2 qofood. Diyaaradaha waxaa arkaya wiil yariis ah oo xeebta jooga. Waxa uu calaa duul wacayaa macalinka. Waxaan ka qabanayaa macalinka cunugiisa. Marka loo geeyo kadib waxa uu maqalsiinaya codka diyaaradaha. Isgana waxa uu amrayaa ciidanka inay isdiyaariyaan. Soomaalidana waa dad jecel dagaalka. Dadkii oo dhan way isdiyaariyeen, waxayna gubeen taayaro si aysan diyaaradda wax u arkin. Ciidamada dhulkana waxay soo gaareen bakaaraha. Abdina weli meeshiisa muusna ka tegin. Salaada casir kadib ayay mid caga dhigatay, midna waxay ku dul degtay dhismaha korkiisa. Howlgalkana sidaas ayuu ku bilowday. Abdina meesha ayuu ka cararay, halka diyaaradii afaraadna xargaha tuuratay. Askartana waxay bilaabeen inay ku soo degtaan laamiga dhexdiisa, halka ciidanka dhulka ay soo gaareen goobta. Askartii ugu horreysay waxay gacanta ku dhigeen dadkii ku jiray hoteelka. Askartii Soomaalida ayaa meesha imaaday, waxay bilaabeen xabado. Blackburn asaga oo diyaaradda ka soo deganaya ayaa saban lagu soo ridayaa. Diyaaraddiina way u baneynaysaa, isagana xarigii ayuu gacanta la weynaya. Saaxiibkiisa ayaa isla markiiba u imaanaya, dhakhtarka ayuuna u wacaya. Xabadahana waa ay socdaan. Soomaalidana AK-47 ayay ku dagaalamayaan, cabsi ma jirto. Blackburn saaxiibkiisa waxa uu wacayaa abaanduulaha, laakiin way ismaqli weynayaan. Kadibna laamiga ayay ka qaadayaan, waxayna ula cararayaan meesha ay joogaan ciidamada dhulka. Isla waqtigaasna askarta kale waxay soo kaxaynaysay dadkii ku jiray hoteelka. Blackburn ilaa ay hadda waxaa loo sii wadaa gaariga xaggiisa. Ugu dambayntiina way ishelayaan. Howlgalka oo dhan waxaa ka hartay 5 daqiiqo oo keliya. Blackburn gaariga ayaa la saarayaa. Isla waqtigaasna askarta kale waxay rabeen inay saaran Soomaalidii la soo qabtay. Waxaa lagu soo ridayaa saban. Meeshana waxaa ka bilaabanaya dagaal. Kadibna Soomaalida dhufayska ayaa laga saarayaa. Ayagana waxay dhaawacayaan hogaamiyihii. Isla waqtigaasna waxaa guutada saddexaad lagu amrayaa inay ku soo laabtan Xalane. Waxay wadaan Blackburn. Waddadana waxaa u gashay Soomaali. Bailey ayay xabad dhuunta ugu dhufanayaan. Wuu dhimanayaa. Ayaga oo dhan way ka murugoonayaan. Gaandheriga waxaa la wareegaya mid kale. Asagana aad ayuu u xanaaqsan yahay. Soomaalidana ayuu guryaha ku duminayaan. Isla waqtigaasna macalinka waxa uu ugaarsanayay diyaaradda. Askarigiisa ayuu ku amrayaa inuu ku rido sabanka. Wuxuuna ku dhufanayaa marawaxada dambe ee diyaaradda. Waxaana diyaaradda ka lumaya isku dheelitirnaanta. Ugu dambayna 61 diyaaradda Black Hawk way dhacaysaa. Niyad jabkii ugu weynaa ayaa soo gaaraya Maraykanka. Generaal Garrisona waxa uu dirayaa diyaarad kale si loo badbaadiyo ciidankii saarnaa. Hogaamiyaha 64 wuxuu wacayaa hogaamiye 25. Aad adiga iyo ciidankaaga diyaaradii dhacday. Kadib hogaamiyaha 25 ciidankiisa ayuu iskugu yeerayaa. Wuxuu dhahayaa, Black Hawk way dhacday, waana inaan badbaadinaa dadkii saarnaayeen. Way baxayaan ayaga oo waddada ku sii jiro. Waxaa soo weeraraya Soomaalida. Meeshana waxay saaranayaan liif ilaa iyo markii dambe ay ka soo gaartay diyaarad. Waxayna dilaysaa gaandheriga saarnaa Cabdi Bilaha. Halka hogaamiye 64 uu kala qaybiyey ciidankiisa 2. Qaybna waxay wadaysaa maxaabiista uu isaga ka mid yahay, iyo qayb sii dagaalanto oo dhulka ku sii socoto. Waxayna ku ballameen inay ku kulmaan meesha ay diyaaradda ku dhacday. Inta ay waddada ku sii socdeen, Soomaali ayaa waddada u galayso. Waxayna ku soo ridayaan saban. Ray Marisna wuu ka badbaadayaa, halka Tobis iyo saaxiibadiisa ay ka tegayaan baabuurta. Waa la iloobayaa, wayna sii dagaalamayaan. Soomaalida maxaa ku taqaanan meesha ay wax ka dhacaan way ku soo shamuumaan. Mid ka mid ah askartii saarnayd diyaaradda ayaa difaac ka dhex galay diyaaradda. Soomaalidii ayuu baaba ka dhigay. Isgana ugu dambayntii way sii dhaawacayaan. Isla waqtigaasna hogaamiyihii 25 waxay soo gaareen goobta. Sakuut ayaa gacanta xabad looga dhufanaa, qoriga ayuuna tuurayaa. Waddadana Soomaali ayaa liifka saaratay. Markii dambana Soomaalida waxaa laga dilaa gaandheriga. Shacabka Soomaaliyeed ayaa dagaalka soo galaya. Askartana meesha ayay ka cararayaan. Ayaga oo dhan dhulka ayaa ku cariirsmaaya. Meel ay galaan ayay weynayaan. Mid ka mid ah askarta ayaa iskuul ugu galaya hooyo iyo carruurteeda asagoo cabsanaya. Albaabkii kale ayuu ka baxayaa. Asagana wuu jiifanayaa. Xabadanahana abihiisa ayay ku dhacayaan. Asagana wiilka ma dilaayo wuu ka qalaynayaa.